mashruucan oo ah mid lagu horumarinayo aaga korontada Jamhuuriyadda Somaliland ayaa wasaaradda macdanta iyo tamarta waxa ka taageeraya Banka Adduunka waxaana mashruucaasi daafuray wasiirka wasaaradda macdanta iyo tamarta Somaliland waxaana goobjoog ka ahaa gudoomiyaha komishanka tamarta xubnaha komishankaasi qaar ka mid ah agaasimayaasha guud ee wasaaradaha dalka agaasima waaxeedyada wasaaradda macdanta shirkadaha bixiya adeega tamareed ee dalka iyo daneeyayaasha korontada dalka Jamhuuriyadda Somaliland ugu horeyn halkaasi waxa ka hadlay injineer Liban Maxamed Maxamuud oo agaasimaha waaxda tamarta wasaaradda macdanta iyo tamarta Somaliland agaasimayaasha guud ee wasaaradaha shaqagelinta deegaanka cadaaladda gudoomiyaha komishanka tamarta iyo xubin ku hadlayay shirkadaha bixiya adeega tamareed ee dalka Jamhuuriyadda Somaliland waxaana ay ka warameen mashruucan iyo waxyaabaha uu ka bedeli doono qaabka tamareed ee dalka Jamhuuriyadda Somaliland halkan ka sheego inuu ay maanta ay u soo mid kulan wada tashiyo oo ka wada tashanayno mid ka mid ah aagaga ugu muhiimsan markay noqoto dhinaca horumarka waddankeena oo aaga tamarta ah sidaad ka warqabtaan runtii in badan baynu dadaalo badan soo wadnay haday tahay xukuumadda haday tahay shirkadaha sidii aynu u suurtagelin lahayn aynu u xaqiijin lahayn in dalka gaarsiino horumar dhinaca tamarta korontada ama aynu ka wada tashanayno mid ka mid ah mashaariicdii ugu waaweyneed ee noociisa ah ee weligeed laga hirgeliyo dalka Jamhuuriyadda Somaliland kaasoo runtii huseeya kaabayaasha dhinaca tamarta runtii waaweyn haday tahay curinta tamarta haday tahay gudbinta haday tahay qaybinta distributionka oo runtii magaalooyinka iyo wadamada isaga gudbi doona ilaahay hayna gaarsiiyay inuu doonayno inuu ka hirgelino isagoo aynu naga taageerayo Banka Adduunka farxad weyn bay tahay inaan ka soo qayb galo shirkan wada tashiga ah ee aynu ku eegayno saameynta bulsho iyo deegaan ee uu leeyahay mashruucan tamarta runtii inaga maalgelinayo ama inaga taageerayo walbaanku anagu ku hadlayo afka wasaaradda deegaanka aad iyo aad baan runtii ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo mashruucan markii aan akhriyo project documentkiisa mid runtii baaxad weyn weey oo dawladdiina ka caawinaya capacity-geeda inuu dhiso infrastructure-keena wax laga qabto runtii ka caawinaya dalkiina markaa runtii horumar baaxad leh u keeni doona haddii markaa xagga wasaaradda cadaaladda ama cadaaladda iyo garsoorka aynu ka istaagno kolleyba muranada dhaca waxaa kow ka haddii khalad dhaco waa in ugu yaraan la isla galo maxkamadihii iyo cadaaladdii maanta maalan electricity-ga aynu baahinayno ee mashruucaasi uu cid ku jiibsado ama uu cid waxyeello u geysto waa in aakhirka loo garnoqo haddii shirkadda uu khalad ka dhaco adiga wax haysta miskiinka ka tag laakiin cadaaladdu way nalaadaho ma taqaano sidaa haddii dhibi ay dhacdo waa in cidda geysatay yani qofka saboolkii wuxuu xaq u leeyahay in la siiyo adeeg kaalmo sharci laakiin xaqu ma laha in la yidhaaho waa saboole isaga ha laga socdo hadduu qaldamo in qaladkiisa lagu qaado haddii qofka hantiilihii uu gaboodfalayna waa in isna maxaan ku dhahaa cadaaladda la mariyo annagoo matalayna shirkadaha leydhka ee soo saara ee Somaliland shirkadihii waxa weeyaan waxa ay noqotay inay isku biiraan oo ay gacmahooda meel isku wada geeyaan xigmadoodana ay maaragtay ay mideeyaan si la isaga kaashado caqabadaha jira wasaaraduna door weyn bay kala ciyaartay in arrimahaas laga soo gudbo waxaynu ka tashanaynaana waxa weeyaan sidii loo heli lahaa tamar koronto oo waddankeena ku filaata balse inta ku filaato aynu dhoofin karno aynu jaararku gudbin karno Jaamac Xaji Maxamuud Cigaal wasiirka wasaaradda macdanta iyo tamarta Jamhuuriyadda Somaliland ayaa ka waramay dadaalada ay dawladdu galisay sidii loo heli lahaa leer jaban oo la awoodi karo xukuumaddu ay u xidhatay dhexda u xidhatay sidii halka la soo gaarsiiyay ay kor uga qaadi lahayd ee ay u korin lahayd leerku maanta halka uu joogo loo heli lahaa leer bed qaba oo qiimo macquul ah leh tii waxaynu ku guuleysanay oo xukuumaddu ku guuleysatay wasaaradda iyo komishanka wada socdaa in mashruucan uu soo caga dhigto Somaliland mashruucan oo ku kacaya boqolaal milyan insha Allah taala mashruucan oo ku kacaya waxyaabaha aynu ugu baahida badan nahay inuu qabto waxaynu ka warhaynaa leyrku ama korontadu inay tahay furaha horumarinta ummadda nooc kasta oo nololeed waxaynu ognahay in aanu ka maarmin leyd
bani aadamka maanta jira taasna waynu u qalanno inaynu helno laydhka u qalma xilligan aynu joogno gabagabadiina ka qaybgalayaashii daafurka mashruucaasi waxa ay su'aalo kala duwan weydiiyeen mas'uuliyiinta wasaaradda macdanta iyo tamarta Somaliland su'aalahaasi oo ku taxalluqay mashruucan iyo waxtarkiisa